walakiinka baagaaw midibka birbiraayo meerta badiinshe boodo duufasu bedbeedan uursha hidoorka berberkoon jiifo afka buumidow ilkooga buyaada lugunta hanuun basan la kabaali nagarta biyaadki iyo heybada belikin abuuri walka baaldhiko waay wuxuu leeyahay timaheedan dhuxusha ah markoo dhaafay dhabarka barna soo dhaceenoo leedhu ay ku dheeshiyo midabkeeda dhiinka ah abwaabka wuxuu ku ammaanay gabadha tinteeda maaragtay quruxdeeda iyo haaneedkeeda isagoo xooga saaray weliba dhereerka iyo badnida tinteeda soo dhawaada saaxiibayaal waa qaybtii labaad aan kaga hadlaynay farshaxanka ama sirta abwaanada qofkii maaragtay aan hore u daawan muuqaalkii hore ku noqon si aad u fahanto muuqaalkan haddii kale kugu adkaanaysa inaad nala qabsato saaxiibayaal waxaan hore maaragtay iskula soo eegnay ama aan maaragtay soo sharaxnay waxa loo yaqaan farshaxanka iyo hal abuurada isticmaalaan inagoo tusaaleynay maaragtay sida maaragtay sheekada iyo erayada ay maaragtay inta badan loo wada yaqaano waxa ka dhigay maasada madaxiisa leh ee maaragtay dhigaha dadka soo jiidata ka dhigay ay tahay farshaxanka hal abuurka uu isticmaalo taas oo kaga dhigayo maasidiisa mid aan hore loo maqal sana loo arag maanta sidaas oo kale waxaan tusaale ka bixin doonaa isla farshaxankii anagoo qaadan doonaa aragti kale ama ammaan kale oo maaragtay hal abuurada inta badan wax ku ammaanaan inta badan gabayada ama heesaha ama geeraarada hablaha Soomaaliyeed lagu ammaano waxaa jira hal abuuro maaragtay ammaanta maaragtay ku qaasiila timaha gabadha ku ammaana ammaanayda iska balaaran maanta waxaan dul istaagaynaa hal abuuradii ama abwaanadii ku ammaanay gabdhaha tinta ku ammaanay ma qiyaasi kartaa in gabartinteeda qof uu amaanay mid kalena uu ka daba amaano adna ay kula muuqato maaragtay wax cusub ay kula muuqato taas maaragtay ku fahansiin doona inagoo dhowr tusaale soo qaadan doono walaan ku horreyn abaan hadraawi STC Beledweyne waxa ku jirta meeriise gabadh uu ku amaanayo tinteeda wuxuu leeyahay timo boqonta joogo baal goray la moodo baarkana casaankii bidix midig isgaaro bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo lagu beerdilacasho abwaabka wuxuu ku ammaanay gabadha tinteeda maaragtay quruxdeeda iyo haaneedkeeda isagoo xooga saaray weliba dhereerka iyo badnida tinteeda bal qiyaas tin maaragtay gabar ku taalo oo hal abuur oo maaragtay saa u ammaanay in mid kale haddana isla maaragtay xubintii ama maaragtay timihii uu qaato uu ammaan ka sameeyo waa wax hawl badan waaye maaragtay oo adag in maaragtay laga duwanaado tin kaliya oo hal abuur hortaada amaan ku sameeyay in adigana aad ku sameeyso dadkana ay ka gadanto wax la isticmaalaya halka ah ayaa ah farshaxan bal aan isdul taagno tusaalaha labaad heestii aad wada taqiineen ee uu qaadayay Axmed Cali Cigaal yaayana waxaan ku jirtay meerise maaragtay meeshan u dan leenahay ah wuxuu leeyahay timaheedan dhuxusha ah markoo dhaafay dhabarka barna soo dhaceenoo leedhu ay ku dheeshiyo midabkeeda dhiinka ah bal arag farshaxanku isticmaalay isla tintii ayuu gabar ku ammaanay umana eka heestii kaleeto waxay kula muuqanaysaa wax kala duwan bay kula muuqanaysaa tusaale kale wuxuu leeyahay dusha timaha guudkee dib u dhaafay araxdiyo dibna hadalka qaadmada yana maaragtay farshaxan adag ayaa ku jira halkaana sidoo kale maanse uu leeyahay abwaan jaci ilaahay u naxariistee isna isagoo gabar ammaana ay wuxuu ku ammaanay tinta wuxuu leeyahay walakiinka baagaaw midibka birbiraayo meerta badiinshe boodo duufasu bedbeedan uursha hidoorka berberkoon jiifo afka buumidow ilkooga buyaada lugunta hanuun basan la kabaali nagarta biyaadki iyo heybada belikin abuuri walka baaldhiko waay waxaan kusoo gabagabaynaynaa tusaale maaragtay hees xamariya oo iyana waxay leedahay guudkaagan dheeriyo midibkaagan gaduudka ah guulahayga ku siiyey yaa ku gaari kara halkaas aan ku soo afmeeraynaa farshaxankii hal abuurada Soomaaliyeed fadlan maaragtay wixii tala hadda hayso nagu la wadaag halka hoose faalada like noo saar subscribe dheh gaarsii saaxiibada assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh